wadamada Estonia, Latvia iyo Lithuania ayaa ku wargeliyay qaramada midoobay in ay ka baxayaan heshiiska caalamiga ah ee lagu mamnuucayo wax soo saarka, kaydinta, iibinta iyo isticmaalka miinooyinka lidka ku ah dadka. Saddexdan wadan oo horay uga tirsanaa jiray midowga Sofiyeeti xuduudna la leh Ruushka ayaa hadda xubno ka ah midowga Yurub iyo gaashaanbuurta NATO. ku dhawaaqista rasmiga ah ay ku dhawaaqeen wadamadan in ay ka baxayaan heshiiskan caalamiga ah ayaa ka dhigan in ay weli ku sii jiri doonaan muddo 6 bilood ah. Wasiirada arrimaha dibadda dalalkan saddexda ah ayaa sheegay in go'aankani uu yahay fariin cad oo ay dalalkoodu dirayaan. waxa ayna sheegeen in ay u diyaarsan yihiin hadda wixii ka dambeeyo in ay isticmaalaan dhammaan hababka kala duwan ee lagama maarmaanka u ah si ay u difaacdaan dhulkooda, xurriyadoodana u ilaashadaan. in ka badan 160 wadan ayaa saxiixay heshiiska qaramada midoobay ee mamnuucista miinooyinka noocan ah 1997 halka Ruushka, Mareykanka iyo Shiinuhu ay diideen xilliga in ay saxiixaan heshiiskan. ururada ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada iyo gargaarka iyo sidoo kale dadka u ololeeyo in aanan miinooyinka la sii isticmaalin ee marar badan ku guuleystay biladda caalamiga ah ee Nobel Peace Prize ayaa arrintan dhaleeceeyay. waxa ayna ku tilmaameen go'aanka ay gaareen wadamadan Baltika ku yaalo in uu yahay go'aan aan u wanaagsanayn oo ay ka muujinayaan walaac u xoogan. dhanka kale xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna walaac u xoogan ka muujiyay go'aanka ay wadamadan Balkanka ku yaala qaateen. baarlamaanka wadanka Finland ayaa sidoo kale go'aamiyay horaantii bishan aynu ku jirno in ay ka baxaan heshiiska miinada caalamiga ah oo ay ku jiraan waxa ayna ku sababayeen duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. wasiirka arrimaha dibadda dalka Norway Espen Eide ayaa isaguna ku tilmaamay go'aanada ka soo baxay dalalkan saddexda ah in ay yihiin kuwa laga xumaado. halka ay wararka ugu doorkaroon idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo Cabdullaahi Shiine.